waxaa si habsami ah uga socda xarunta hay'adda shaqaalaha ee magaalada Hargeysa codbixinta doorashooyinka madaxtooyada ee Soomaaliland oo saaka subaxnimadii 7 subaxnimo ka bilaabmay guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo doorashadii noqonayso doorashadii saddexaad ee madaxtinimada ee Soomaaliland iyadoo shacabka Soomaaliland ay maanta go'aamin doonaan ama ay dooran doonaanba madaxweynaha 5 sano ee soo socda waxaa xarunta hay'adda shaqaalaha saaka ka codeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa hore uga codeeyay waxa iyaguna goor dhaweyd soo gaadhay murashaxa xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe iyo murashaxa xisbiga talada haye kulmiye Muuse Biixi Cabdi murashaxiintani waxa ay shacabka Soomaaliland ugu baaqeen inay nabadgelyada iyo nidaamka ilaaliyaan isla markaana ay codkooda u dhibtaan si nabadgelyo murashaxiintan oo warbaahinta kula hadlay xarunta hay'adda shaqaalaha waxa ay yiraahdeen socota waa bilowgii qaylo badan baa jirta waxa jirta in laga soo qabanayo labada xusbi dadka qabyaalad ku abuureen ee qasgelinayaan kuyadii askarta qaar baa laga sheegaya inay baarshil yihiin laakiin anagu ilaahay baan aaminaa subxaanahu wa ta'aala askartana waxaan leenahay jananka waxaan leenahay war xil baa ilaahay ka baqa qofkii soo baxay waa qoran yahay maanta anigu dadka waxaa la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxda dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygu wanaagsan yahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxaan ku hambalyaynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kala laheen waxaanu dooran doonaa madaxweyne cusub 3 murashaxabaas ayaa jooga kii soo baxa waa hambalyaynaynaa anna waxaan isleeyahay dhammaan codka u badan waad heli doontaa intiinana waxaan ka rajaynayaa inay codaysaan waraaqad yar ii turtaan intiina taagan ma yaridine kuway maqlayna waxaan leeyahay codka igu roonaada haddii alla yidhaahdo dalkuna nabad buu ahaanaya warwarna ma jiro ragga sharaxanina waa rag wada odayaala dalka danaynaya aan loo baqaynin aad iyo aad baa u mahadsantihiin أحمد محمد حسين سيلاني يدو قوبتنا تاي قوبتا انت بدن اي كعوديان مشرحين Soomaaliland عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaan u dirayaa shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan ku hambalyaynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland ahna musharax madaxweyne cabdirahmaan maxamed cabdilaahi Eero waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay anigoo muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyay khadkii aan ku codeeyayna waa ka fartayda ka muuqda waxaan u rajaynayaa shacbiga Soomaaliland inay si nabadgelyo ah iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhigannay ciidanka ammaankana la shaqaynaya inay si nabadgelyo ku codayno waxaan shacbiga leeyahay nabad ku codeeya muwaadin kasta xisbigu doonaha u codeeyo waxaan ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha Allah waxaan rajaynayaa inay guul inoogu dhamaato shacabka ku jira safafka ayaa ilaa imika si nabadgelyo ah oo isla markaana kala dambeyn iyo nidaam ka muuqato safkooda ku jira iyadoo kuyu qof kastaaba marka uu codeynayo loogu yeedhiyo magaciisa soo kaarkiisana gacanta ku sitaa bulshada Soomaaliland bishaare ma ogtihiin baxsane calankeena iyo warkeeni la baahiye bulshada Soomaaliland bishaare ma ogtihiin baxsane calankeena iyo warkeeni la baahiye نبرلي حاسدك قرار
noo kordhiyo barwaaqadu dhibi jirto xornimo noo buuxsantee bislaatay noo hanee xornimo noo buuxsantee bislaatay noo hanee bulshada Somaliland bishaare ma ogtihiin cod bixinaan boob lahayn ku shubashiyo beenahayn bulshada Somaliland bishaare ma ogtihiin cod bixinaan boob lahayn ku shubashiyo beenahayn xisbi loo barataniyo qabiil waa laga baxo xisbi loo barataniyo qabiil waa laga baxo dadweynta lagu daree nin bayliyo xasidkii badhaadhaha noo kordhiyo barwaaqadu dhibi jirto xornimo noo buuxsantee bislaatay noo hanee xornimo noo buuxsantee bislaatay noo hanee bulshada Somaliland bishaare ma ogtihiin waxbarashadu waa hubkii baahida lagu reebay bulshada Somaliland bishaare ma ogtihiin waxbarashadu waa hubkii baahida lagu reebay barbarteeni cilmiga bulshada u baratayba barbarteeni cilmiga bulshada u baratayba kuniyo boqolaal kune nin bayliyo xasidkii badhaadhaha noo kordhiyo barwaaqadu dhibi jirto xornimo noo buuxsantee bislaatay noo hanee xornimo noo buuxsantee bislaatay noo hanee xornimo noo buuxsantee bislaatay noo hanee xornimo noo